السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيجك داونسان وسعيد سربيا. waxaan ku codsanahay fiidiyoga idin soo gaaro inaad share iyo like iyo follow baan ugu caawisaan. sidoo kale YouTube waa furtay oo ku qoran yahay Sacid Serbia, xaggan waa nagala socon kartaan. waxaa jira dad fara badan oo soo weydiinayeen oo ay dhahayeen Sacid oo ka soo hadal arinta imaashada Serbia, haddii noqoto Bosnia, haddii noqoto Serbia. arintan oo waxaa jira dad badan oo ay dhahayeen war Sacidow anaga haddii aan isku dayno inaan anaga aan xareysano fiisihi tusaalo kale invitationka haddaan doonno inaan anaga invitationka aan codsano ma qasaba inaan qof la xiriirno ama adiga kula soo xiriirno, qasaba inaan ila soo xiriirto. adiga lafaad waa samaysan kartaa invitationka kaliya. waxaa laga doonayaa shuruudahan soo socda inaad soo buuxiso. waa xareysan kartaa adiga kaliya adoon cidna la xiriirin ama aniga ama qof kale adoon la xiriirin. haddii noqoto Serbia, Bosnia, Europe xitaa sidoo kale meesha rabto European ka noqoto Europe waa xareysan kartaa. adaa isku filan cid uma baahnid. muhiim ma ahan inaad qof la xiriirto dhahdo wax ii sameeyo. okay, sometime mararka qaar way dhici kartaa in aad qofkii aad la xiriirto oo dhahdanyo meeshii tag lacagta xitaa iga shub, sababtoo sida hadda anaga caadiyan ognahay bangiyada Soomaaliya ama Afrika ku yaala bangiyada Europe, bangiyada ku yaala Europe iyo kuwa Afrika wax xiriir oo ka dhaxeeyo ama connection ma jiro oo lacagay sida isugu gudbin lahaydeen inay adkaato ayaa laga yaabaa. okay, waxaa jiro dadkaas idhahayeen nin oo ka soo hadal arinta anaga inaan xareysano. waa xareysan kartaa adiga adoona cidna la xiriirin. waxaa samayn kartaa oo kali telefonkaaga inaad soo qaadato oo Google-ka aad ku qorto sida hadda description-kan waa soo dhigayaa, meesha qaybta comment-ga waa soo dhigi doonaa linkigan. kali linkiga markaa soo dhiga xagga ka soo follow garay waa arki doontaa. wuxuu ku weydiinaa shuruudo, magacaaga, meesha aad joogtid, baasaboorka lambarkaaga, dhalashadaada qofka aad tahay, haddaad tahay Soomaali, haddaad tahay nationality-gaaga, waxaa tahay nationality-gaaga uu ku weydiinaa. Soomaali haddii noqoto iyo haddii noqoto Ethiopian iyo haddii noqoto Kenyaati, waxaa rabto wado baasaboorka rabto isticmaal. kaliya nationality-gaaga ku weydiinaa iyo taariikhda aad dhalatay, magacaaga saddexan, meesha aad joogto. then payment-iga sometime way dhici kartaa lacagta markaa bixinayso inay ku dhahaan online oo kale card, master card haddaa isticmaasho waa bixin kartaa. sometime abyadan hadda aan soo dhigi doono linkiga badankood waxay isticmaalaan master card oo aad lacagta ku bixin karto. haddii noqoto lacala in aad linkiga markii aad soo dhigo kala hadda linkigan oo invitationka laga yaabay inay ku dhahaan anaga kaar ku bixin karno oo cash camal inay cash ahaan ay ku dhahaan u bixi. cash ahaan markii imaad markaas waxaa qasabay qof wadanka ka codsanaysa invitationka, haddii noqoto Bosnia, haddii noqoto Montenegro, haddii rabto Europe naftirkeeda ha noqoto. waxaa qasab qof meeshii aad ka codsanaysa invitation letterka inuu kuu joogo, aad la xiriirto oo lacagta u dirto oo qofkii meeshii oo kuu tago oo lacagtii soo shubo. adiga xareysan kartid invitationka, sababtoo visa markaa codsanayso oo aad safaaradda tagayso oo aad inaad safaaradda tagto ee noqoto aad visa Serbia u baahanahay ama Bosnia u baahanahay ama Montenegro u baahanahay. safaaradda waxay kugu xijinaysaa xitaa la imaw invitation haddii noqoto ardaynimo, haddii noqoto caafimaad iyo haddii noqoto dalxiis. linkigan aan soo dhigayo waa dalxiis. qofka kaliya doonaya dalxiis waa inuu Serbia ku yimaado. waxbarashada sidoo kaleeto linkiga ayadana jiro waa soo dhigi doonaa video ku xigo. caafimaadka sidoo kaleeto linkiyada isbitaalka soo dhigi doonaa. meesha waxaa ku qoran waraaqadaas waxaa waaye waa Serbian ma ahan English. dabcan inaad fahmi weysaan way dhici kartaa, laakiin waxaa samayn kartaa translate. inaad adiga translate aad samayso aad English u bedelato waa aqrinaysaa meesha waxaa ku qoran. shuruudaha buu buuxinaysaa. shuruudaha markaa buu buuxiso waxaa u diraysaa email invitationka shuruudaha buu buuxisay. emailka markaa u dirto way kuu soo jawaabayaan. then payment-igi laga rabaa inaad bixisid. payment-igi markaa bixiso then invitationkaaga waa heshay adoon cidna la xiriirin, lacag badana lagaa qaadanin ama cidna aadan su'aal kale aadan weydiisanin. waa samayn kartaa haddii noqoto Serbia, haddii noqoto Bosnia. videoga xigo waxaa soo dhigayaa qaybta caafimaadka, linkiga caafimaadka jaamacadaha haddii noqoto Serbia iyo haddii noqoto Bosnia iyo haddii noqoto Montenegro. sida aniga Balkankan caadiyan aan Balkan ka wado Serbia, Montenegro, Croatia, wadamakan dariska dhulka waxay isku ahaan jireen Yugoslavia, laakiin markay kala hareen hadda waxay noqdeen wadaman oo kala go'an. marka linkiyada waa soo wada dhigaa jaamacadaha, caafimaadka, waxbarashada iyo dalxiiska. linkiyada kulli waa soo wada dhigi doonaa qaybta hoose. waxaa ka codsanaya videoga hadduu kusoo gaaro inaad la wadaagto share iyo like iyo follow. haddii aad xiiseynayso inaan ka soo hadlo barnaamijyadan nala wadaag commentiga. haddii aad doonayso inaad soo baxdid aad imaatid Europe, ma u baahnid inaad qof la xiriirtid, ma u baahnid in qof aad lacag badan ku bixisid, adigaa samaysan kartid.